الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها ميلكستو أتجوكتان وكلا كاني كوكوبنا وإنو كجاهد ليني هرم مرينتا فكرك إيوه وعيجا بلشدنا dalka Soomaaliya maanta waxa lagu qiyaasaa inuu yahay dalalka saboolka ah ee faqiirka ah ee u baahan sida la yiraahdo deeq bixiyayaasha sida UN-ka iyo EU-da Yurub iyo barwaaqa sooranka iyo Afrika iyo bangiga dhexe iyo bangiga adduunka iyo kan Afrika inuu ka qaato deymo inay caawiyaan inay horumariyaan hatta shirarkiisa iyo waxyaalaha Soomaalidu dadka ay qabsanayaan iyo maamulka dhulkooda hatta inay weydiistaan waxa lagu tilmaamo beesha caalamka arrinkaas waxa weeye arrin qabta dadka muslimiinta ah ma aha sababtuna waxay tahay laba sabab waa midda koowaad ee dadka muslimiinta ah oo Soomaalidu ka mid yihiin waxay amran yihiin inay shaqeystaan oo ay xoogsadaan oo ay risqooda iyagu la soo baxaan oo aanay cidna baryin sidoo nabigeenu kaleey salaam uu yiri al-yad al-ulya khayru min al-yad as-sufla in midkiin inta duurka tago oo qoryo soo gurto ayaa ka fiican dadka inuu baryo ma garad taas waa qodobka labaad waxa weeye inay bartaan khayraadka ilaahay siiyay iyo waxa ilaahay nimco u dhigay inay ka shaqeystaan sideedaba waxa weeye saboolnimada lagu sheegayo islaamka xaqiisa marka aynu tagno sharciga islaamka iyo quraanka iyo sunnada marka aynu fiirino saboolnimada iyo faqiirnimada dawladaha lagu tilmaamayo maxaa u sababa islaamka xaqiisa hadaynu aadno waxa weeye laba sababood baa u sababa waa midda koowaad waxa weeye khayraadka oo aan laga faa'iideysan waa midda labaad waxa weeye dadka oo isdulmiya oo qaar yari hantidii iyagu ay isku koobaan oo kaligood qaataan iyo musuqmaasuq iyo dulmi iyo ribo iyo xadgudub iyo isdaba marin oo bani aadam ka dhaco labadaas baa u sababa saboolnimada iyo faqiirnimada khayraadka oo laga faa'iideysan iyo dulmi bani aadamku qaarkiis uu dulmiyo aanu nimaadno Soomaaliya hadda waxa la yiraahdaa masalan waa dalalka faqiirka ah oo khadka saboolnimada 70% ay ka yihiin ma sababtu maxay tahay labada sababood bal fiiri khayraadka iyo aan laga faa'iideysan iyo in la isdulmiyo oo in yari ay isku koobto iyadoo dhaqaalihi labada sababood oo quraankuna sheegayo xadiiskuna uu sheegayo diinta iyo shariicaduna ay noo fasirayso waa labada sababood sabab saddexaad ma jirto iyaga ka farcamayaan xalku muxuu noqonayaa marka inaynu ka kaaftoono oo ka deeqtoono dad kale inaynu barino oo inagu aynu awooddeena yeelano go'aankeedana aynu xor u noqono dhinac walba bulshadeena waxa weeye khayraadkiina inaan ka faa'iideysano dulmiga inuu joogsado sidaas darteed sharciga islaamku waxa weeye mushkiladda dhaqaalaha wuxuu ku xalliyaa saddex arrimood sida al-imaam Abu Yusuf kitaabkiisa al-Kharaj wuxuu dhintay 182 hijriyada uu ku tilmaamayo wuxuu leeyahay mushkiladda iqtisaadiga oo dhan wuxuu ku soo koobay saddex arrimood buu ku soo koobay waa midda koowaad cadaalad waa in la helaa mujtamaca waa in cadaalad la helaa haddii aan cadaalad ayan jirin oo cadaaladda la sugin ee dulmi meesha uu ka dhaco ma jirayso mushkiladii dhaqaalaha in la xalliyo ma dhacayso si kastoo la isugu dayo midda labaad waxa weeye dadka in xorriyad loo siiyo inay shaqaystaan oo bimacnaa waxa adduunku hadda u yaqaano private sector ama hantida gaarka ah shirkadaha kambaniyada bangiyada warshadaha yani milkiyada gaarka ah oo dadku inay wax yeeshaan oo hanti yeeshaan bani aadamku ku abuuran tahay in la dhiirigeliyo oo maaragtay xurriyad la siiyo inay kala shaqeystaan ilaahay baa kala irsaaqayo iyaga kala shaqeystaan midda saddexaad waxa weeye hoggaan wanaagsan oo dawladnimo oo kala hagta oo nidaamkii u ilaalisa oo maamulkii u ilaalisa
saddexdaas qodob buu ku soo koobay mushkiladda dhaqaalaha oo dhan in lagu xallin karo kutub kale oo badan baa laga alifay imaam kadib waxaa alifay imaam maxamed ibn xasan ashaybaani oo isaga ardaygiisa ahaa kitaab la al-iktisaab ayuu maaragtay ka alifay oo dhaqaalaha ka hadlaya sidaasoo kaleeto alimaam almaawardi wuxuu alifay kitaab alaxkaam suldaaniya oo qayb ay ka tahay dhaqaalaha iyo maamulka siyaasiga ابن أبي يعلى وحد في الأحكام السلطانية سيدا سوكالت وكجاه الله سياسة الشرعية ابن تيمية في السياسة الشرعية كتاب وكجاه الله ما ملك يدول النمى يهجامنته شقة سيدا لوكلا ما ملاي حولها سيدا لو ما ملاي لقالها سيدا لو ما ملاي دولة الإسلام كا ويسجن برشة الإسلام وكجاه الله سيدا سوكالت الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام سنو اللي في كتاب الأموال حولا وكتبته ugu balaaran kamida waxaan kitaabadaas oo dhan u tilmaamaya inay tahay muslimiintu qarnigii labaad laga bilaabo inay taaliif inay qoraan kutubtii u horeysay oo dhaqaalaha ka hadlaysa iyo horumarinteeda culimada islaamku inay ka hadlaan oo ay alifeen taasuna waxa weeye in la tilmaamayay dhaqaaluhu inuu yahay halbowle adduunkana hadda waxa la yiraahdaa qof aan dhaqaale lahayn ama wadan aan dhaqaale lahayn idilma dhegeysanayso addoonnimuna ku jiraa gumaysibuuna ku jiray haddaanu xor u ahayn luqmadiisa iyo waxa uu dalkiisii iyo dadkiisii ku maamusho haddaanu xor u ahayn xor ma noqon karo bani aadam xor ah oo gobonnimo haysta ma noqonayo qof gacanta hoorsanaya xor ma noqonayo saas darteed marka hadalka gunaanadkiisa waa mushkiladda dhaqaale ee ama Soomaaliya haysato ama dal kale oo muslim haysatay waxa lagu xalinayaa koow horta cadaalad in wax lagu maamulo oo cidda maamulka haysta عدالة تاسونا وحين نقول شرع إلهي سبحانه وتعالى إنه قد رقمه إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلهي سبحانه وتعالى عدالة بأمره وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل عدالة نظامك إنه غصب وضدك شقيستان مد الله بعد إن ضدك حرية لوصيه إنك شقيستان فرصة دي شقة لوفره مد صدحات ليدرشيب وناكسن يهجامين وناكسن أو مامل دولديت إن الله هلو صدح لها دي اللي هلو مشكلة دقالة إيه فخري إيه صبول نمو لقى عبانيا مجري دونته والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.